xafiiskan cusub ee wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya xariga uu ka jaray saaka ayaa noqon doona mid ka shaqeeya wacyigelinta bulshada iyo sidii dadka Soomaaliyeed si fudud baraha casriga ah ee bulshada loogu gaarsiin lahaa wararka iyo barnaamijyada warbaahinta dawladdu ay baahiso. agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Mudane Liibaan Cabdi Cali ayaa sheegay xafiiskan oo magaciisu noqon doono tubta toosan inuu yahay mid ka shaqeeya isku xirka dawladda iyo qaybaha bulshada. ku soo dhaweeyno xaruntan cusub oo maanta xariga uu ka jaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. xaruntan cusub oo qaabilsanaan doonta digital outreach-ka iyo gaarista dadweynaha iyadoo la isticmaalayo platformska kala duwan ee warbaahinta ku shaqeysa online-ka halkaas oo aan doonayno haddii la yiraahdo inay bulshadu ka helaan ama dadka isticmaala baraha bulshada qaybahooda kala duwan iyo online-ka inay ka helaan macluumaadka iyo afkaaraha saxda ah ku saabsan wacyiga guud ee bulshada ha noqoto dhinaca diinta ha noqoto dhinaca dhaqanka ha noqoto dhinaca dawlad wanaagga ha noqoto wax kasta oo Soomaalida khuseeya wacyigelin la xiriirta ay halkan ay ka heli doonaan xaruntan cusub oo ay ka shaqeyn doonaan dad maaragtay aqoon u leh wax badan kala socda xaaladaha waddankan uu ku sugan yahay. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa sheegay tiro xirfadyahano ah in ay ka howlgali doonaan xafiiskan cusub oo lagu soo biiriyay wasaaradda si fiican ay u abaabulsho barnaamijyada wacyigelinta ah ee maaragtay marxaladaha la joogo ku haboon dadka Soomaaliyeed iyaga oo dabcan ku saleyn doona baahiyaha maaragtay dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ay qabaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo xariga ka jaray xaruntan ayaa sheegay wacyigelinta bulshada inay xoogga saarayso wasaaradda warfaafinta iyo sidii dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka isku xirkooda looga shaqeyn lahaa. maanta xaruntan aan xariga ka jarnay waa runtii xarun aan ugu talagalnay in bulshada laga wacyigeliyo dhanka online-ka ama isticmaalka social media. dhalinyarada Soomaaliyeed waa 70% in ka badan iyagana waxay u baahan yihiin warbaahinta casriga ah bacdama ay maalin walba sii casriyoobayso in habkii aan u shaqeyn jirnay wax ka bedelno oo hab casriyeysan oo ummadda bulshada lagu gaarsiinayo warka dawladda iyo shacabka si la isugu xiri lahaa sidii dhalinyarada loo tusi lahaa dawladdu inay ka wanaagsan tahay wax walba ha noqoto dhankii amniga sida qayb uga qaadan lahaayeen dhankii horumarka bulshada iyo dhanka la dagaalanka musuqmaasuqa dhammaan. wasaaradda warfaafinta ayaa u taagan wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo hanuuninta dadweynaha. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta dawladda Soomaaliya, Muqdisho.